السلام عليكم dhegeystayaal waa mar kale iyo Aamin Media Limited oo sida aad uga barateen idin soo diyaariyay barnaamijyo taxane ah oo aan ugu magac darnay taariikhda wax ka baro. Waxaan barnaamijyadani uga hadli doonaa marxaladihii kala duwanaa ee ay Soomaaliya soo martay 20 sano ee ugu dambeysay. Haddaba barnaamijyadan taxanaha ayaa waxa ay ujeedadoodu tahay in si weyn loogu xasuusto waxyaabihii ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka. Anagoo barnaamij waliba ku soo qaadan doona qaar ka mid ah dhacdooyinkaas taariikheed ee uu dalka soo maray. Haddii ay noqon lahayd dhacdooyinkii ugu naxdinta iyo murugada badnaa sida dhibaatooyinkii ay ummadda Soomaaliyeed kala kulmeen hogaamiye kooxeedyadii ururka Al-Shabaab, iyo haddii ay noqon lahayd dhacdooyinkii taariikhiga ah ee lagu badbaaday sida doorka ay ka geysteen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda dib u soo celinta nabadda iyo xasilloonida dalka, iyo weliba sidoo kale doorashooyinkii xorta ahaa ee suurtageliyay dib u dhalashada dowlad qaran ah oo Soomaaliyeed. Waxaa barnaamijka ku soo diyaariyay Aamin Media Limited, waxaana kula socodsiinaya Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo jooga magaalada Muqdisho. waa qaybtii koowaad ee barnaamijyada taariikhda wax ka baro. waxa aan qaybtani uga hadli doonaa dagaaladii sokeeye, waxaana martii noogu ah Yunis Axmed Kuukaay oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo u shaqeeya mid ka mid ah hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya. dagaal baa wuxuu ka jiray buulixubay oo 2 bilood isku hayay beel kamid ah marka waxa la hadii aad keenin rasaas aad gadin iyo hal laba qori oo kugu soo aaday ama aad dagaalka gelin adaan ku dileynaa lacagtii anoo ku maqan ayaa waxa la dilay daadii iga yaray meesha lagu dilay oo isla family ku dileen. arintaas ay waxaan u badnay waxaan dareemay foolxumada iyo ceebta maamulaantu ay leedahay, qabyaaladu leedahay, dhibaatada ay leedahay, iskaashiga doqonnimada ee ku dhisan qabiiliga ayaan dareemay iyo ceebta ay leedahay. dhibaatadii dhacday anigu waan ogaa, xataa nadarteedu waxaan saaray oon cid iga sheegay Ilaahay ugu yahay in arkay haad cunaya timo laamiga ku dhagin maskaxdiisii aad tadalaashay haad cunaya aan arkay. marka wax qof bin aadana oo haad cunaya yaani nolol ka xum inaysan jirin qof kasta oo gareemi kara. qof Soomaaliyeed oo ahaa waliba isla dal Soomaaliyeed oo ahaa dal qofka dul sanayn wax karaama male, meel ka xum la aadaama jirto. inkastoo qof Soomaali qabiil laga weeyka laakiin waxa jira waxyaabo aysan diintu xataa ku ogolaan inaad qabiilhaan u dhaqanto. annagana haddaan nahay Soomaali laba cudur baan qabnaaba, aqoon la'aan xagga dawladda waa qabnaa, qabiilkii oo aanan fahamsanin oo si xun u fahnayna waa qabnaa. labadaas arrimood wax nagu shuba waa rabnaa, wax naga shubana waa rabnaa. qabiilkii wax naga shuba waa rabnaa oo nagu bedela nolol iyo mujtamac la dhex galo iyo dad aan is aqoon, dad aan kala qabiila in la wada noolaado oo gol in la ku daro waa rabo oo dad u bisil aqoon-yahana u tababaran inay bulshada wacyi geliyaan ka shubaan qabiilka kuna shubaan wada noolaanshaha waa laga marmaan. qoysuweexo wala kale u olole waxa xola ururso isticmaalka garabsi. qadarkaas hordhaca kadib ayaan waxaan idinku dhaafayaa Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo barnaamijka idinla socodsiiya. waa Shariif Cali Shariif oo idin leh dhegeysi wacan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa mid ka mid ah barnaamijyadii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay ama aan ugu magac darnay taariikhda wax ka baro. waxaa barnaamijkan gaarka aan uga hadli doonaa waxyeelada dagaaladii sokeeye ee lagu baaba'ay, annagoo diiradda saari doona saamaynta qabyaaladda iyo iskooxaysigu ay ku leeyihiin dagaaladaasi iyo sida looga baahan yahay helitaanka ummad Soomaaliyeed oo ku midaysan dantooda guud iyo taageerada dawladooda qaran. haddaba ugu horreyn waxaan rabaa inaan ninkan oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed aan magaciisa iyo waxa uu qabto iyo xilliyada dagaalada sokeeye halka uu ku sugnaa isagu markaa uu noo sheego. kusoo dhaw barnaamijka. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Yunis Axmed Kuukaay, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. waxaan horta ka mid ahay hay'ad yahdo Walaweyn Foundation. waxay ka shaqeysaa nadaafadda, qoodinta haweenka, maxaa la yiraahdaa ilaalinta deegaanka, beeraha xooggan ku falnaa, isla mar ahaantaasna waxaan tirkoobnaa ilaalinaa xuquuqda qofka bini'aadamka sida dadka birimageedyada oo kale. xilliyada dagaalada sokeeye ee dalka Soomaaliya ku sugnayd gudihiisa ma waxaan ilaa ku sugnaa aduu 95 aan ku sugnaa. marka 95 dhacdooyinkii iyo waxaan ka badnaa oo arkay waxay ahayd guri uu lahaa abtigay ayaa la yiri hay anoo degan guri dawladda leedahay xafiis ah oo ku aroosay oo markaa guri aan lamaan lahayn. markaan gurigii tagay ayaa la yiri guriga ka guur oo waxa yiri isla family-kii dhexdiisii. sababta markay ii sheegeen waxa lagu yiri waxaan ka rabnaa lacag aan ku gadano rasaas oo dagaal baa wuxuu ka jiray buulixubay oo 2 bilood isku hayay beel kamid ah marka waxa la hadii aad keenin rasaas aad gadin iyo hal laba qori
oo kugu soo aaday ama aad dagaalka gelin adaan ku dulaynaa lacagtii anoo ku maqan oo shaxad u aaday bakaaro ayaa waxa la dilay da'dii iga yarayd meesha lagu dilay oo isla family ku dileen arrintaas ay waxaan u badnayd waa tahay markaas maxaa dareentay waxaan dareemay foolxumada iyo ceebta iyo maamul la'aantu ay leedahay qabyaaladu leedahay dhibaatada ay leedahay sokeeyanimada iyo xinsidu iyo iskaashiga doqonnimada ee ku dhisan qabiiliga ayaan dareemay iyo ceebta ay leedahay maxaa marka kuugu yaabadnaa waxaa igu yaabadnaa markii leeyahay war adan waxba faran ba haysan oon qadadii haysan lagu yidhi qori aa kaa gad ama rasaas badan gad ama aduu dagaalka gad ma ilmahan u qaraara bas dagaal baan galaa waa arrin la yaab igu noqotay muruga wallaahi waxaan ka saxay muddo 7 beri waxaan cunayay iyo inaan seexday iyo inaan soo jeeday maba kala aqaanba ilaa quraan aan arkay inuu saarayo waa tahay qofku markuu meel ku nool yahay oo uu yahay qof bini aadam oo nool oo dhaqdhaqaaqaya dabcan murugada iyo farxadda iyo dhibaatada waa midba waqtigeeda u timaadaa farxadda goorma kuugu farxad badnay inta dalka ku sugan waxay igu farxad badnaa markii aan maqal dawladda la dhisay carte ayaa igu farxad badnay noloshayda markii hore anigu waxaan ahaa ubax kacan oo reer kuleejan ahaa reer kismaayan ahaa waxaan ahaa dadkii ku jiray qaxootiga laga aruuriyey oo agoonta ahaa oo odayaashooda iska daacoonkii kaloori dileen deetana ay xareeyeen ciidanka asubta Soomaaliyeed waxaan baran jiray farsamada gacanta formikada ayaan baran jiray luglow ayaan ku soo koray wiilna adeer iyo abti iyo eedo iyo edaxim guri ay leeyihiin xataa wali gaas biya kama cabin marka intaasaan waxaad ahayd yani dadka dawladda soo korisay kacan koris waan ahaa ilaahay khayraasiye kacanka ay koriyey asaana waxay baray markaad maqashay marka dawlad baa la dhisay waana qayb ka mid noloshayda farxad aad u farxad geliya waa tahay marta taana waa ka abaqaadayna marka dawladnimada Soomaalinimada iyo cadaaladda haddii mid ka mid lagu yiraahdo mudnaanta koowaad hal la siiyo midda ayay nidaadu aad ugu faraxsanaan lahayd sababta ku dooranaysa midaasna maxay tahay waa dawladnimada Soomaalinimada iyo cadaaladda horta cadaalad wax la mid ma jiraan maxaa jira cadaaladdu waa nolosha qofka bini aadamka mar hadduu rabo inuu noolaado waa inuu helo cadaalad oo ku tiirsanaado haddaan meesha cadaalad jirin nolol ma jirto cadaaladana dawlad baa keenta ilaahay ka sokow dawladuna waxay hagaajisaa nidaamka dadweynuhu waa raacaa haddii marka aadan haysan dawladnimo haysan cadaalad ma saddexdu isku xiran yihiin cadaaladii iyo dawladnimadii iyo Soomaalinimadii waa isku xiran yihiin midba mid ku tiirsanta haddaad mid kamid aad weydo waxaan hormarin lahaa cadaaladna hormarin lahaa waxaan ku xijin lahaa dawlad cadaaladda wax la raadaa dawlad in dhisto cadaalad dhisto dawladnimo dhisto dawladnimada Soomaalinimo dhisto bulshada sidaa lagu dhiso qoysna laga bilaabo ilaa qaran heer qaran waa tahay haddii aan dib u eegno marka marxaladihii uu dalku soo maray ee dagaalada sokeeye gaar ahaan sidii uu ku bilowday maxaad is leedahay way ka habbooneed in la sameeyo oo aan la samayn maadaama ficil ahaan iyo waayo aragnimaba aan u soo joogno wixii dhacay horta waxaa la yaab lahaa aan ogaa iyadoo leeyahay 88 ayaa dagaal dhaceen qoyga galbeed ka dhaceen dhibaatadii dhacday anigu waan ogaa xataa nadarteeda waxaan saar oon cid iga sheegay ilaahay ugu yahay inaan arkay haad cunaya timo laamiga ku dhagin maskaxdiisii aan inta dhalashay haad cunaya aan arkay marka wax qof bin aadana oo haad cunaya yani nolol ka xum inaysan jirin qof kasta oo gareemi kara xanuunkeedana oo gareemi kara qof Soomaaliyeed oo ahaa waliba isla dal Soomaaliyeed oo ahaa dal qofka dul sanayn wax karaama male dalkiisa lagu dilay lagu dhacay looga tagay asoo waliba darxmo dhintay yani meel ka xun ma la aasin meel ka xum la aadaama jirto marka Soomaalinimada wax ka fiican male dawladnimaduna aad bay noo fiican tahay laakiin waxaan marka la yiraahdo wixii dhacay waxa ka haboonaa in sidan la sameeyo misaal ahaan dawladii sida lagu dumiyay oo qoriga ahayd ma jirto wax kale lagu dumin karay oo aan dhibaato badan keen lahayn ha fursado badan baa jirtay sababta fursad jirtay waxay ahayd inaan ku qoys qaadanahay reer koonfur waqooyi wixii ka dhacay waxay in 10 ka qaadano oo aan si mucaarad aan hubaysan aan ahaan hadii xataa aan mucaarad ahaanayno laakiin dawladda aan uga bixino oo aan dumino bedelkeena ma ahayno waxa ka haboon in lagu bedelo boqolkii bayaanka hadii xal waa in la iska daayo dhaayo in dawladii waa noo fiicnad in loo daayahay hadii la iska daayo maxaa dhici lahaa isla hadda maanta adduunka la mid ahaanay barwaaqan gaari hormaran gaari lahayn waxna isbedel lahayn ilaahay uma qorin waxa la xafid qof ugu maqra marka xaq Allah xataa waxaan ka rajaynay in ilaahay wax dabiici ah oo qeyr qabna ugu bedelo waa tahay qayb inta la eeg baad isleedahay marka qabyaaladu waa ay ka geysatay dagaaladii macna darrada ah ee bilowday 19 oo dalka meel kastana saameeyay yani qabyaaladu qayb inta leeg bay ku leedahay dagaalada qabyaaladu saameyn weyn bay ku leeyahay oo waliba wax garan kartaa wax arkaysaa nin siyaasi oo kule anagu hadaan ahay beesha reer hebel yani waxa raba qofku markuu wax barto inuu bulshada Soomaaliyeed ay isku mid ka dhigo oo noqdo qof shakhsi mutawassida haddii marka aqoontaada ay ka reebayso qabiilkii wax ka xun ma jiraanba wax ka xun qofkii aqoonta lahayd bedeshay mid aqoon xad maynaysa oo geeltira oo sugan cugmana xigeen u jooga kaas ma waa iska dhici kara qabiile marka waa masiibo ilaahay ummadda soo diray qabiilku waxaan nooga fiican inaan Soomaalinimada iyo cadaaladda iyo dirisnimada iyo islaamnimada inaan ku noolaano qof walba qofku fahmi kara raaco
macnaha hadda misaal ahaan dawladda kacaanka lagu dumiya qabyaaladda haddii xisbiyo lagu dumin lahaa ka war ha waa ilbaxnimaday leedahay waa xadaarad baan gaari lahayn waxayna ahaan lahayd in aan Soomaaliya inta xisbiyo samaysano qof walba istadaw dalka dhaco qof walba kartidiisa iyo aqoontiisa ku soo baxo meeshuu qabiilkiisa ku dhalan lahaa aqoontiisa ku dhatay marka ma islada marka qabyaaladu way dhamaatay hadda waa u egtahay laakiin wali iima muuqato dhaawacii baa muuqdo oo wax arkaysa niman siyaasiyiin ama xildhibaana ama ganacsata oo maal ilaahay siiyay oo haddana qabyaaladii ordaayay nin faqiir oo koob shaashimo kale wuxuu leeyahay war qabyaalada naga daayay waa wax la yaab laayana hadda dawladihii ugu dambeeyay dhan waxa lagu soo dhisay hab qabiil 4.5 iyo yani odayaal dhaqanka reer hebel baad maqlaysaa inta waxaas jiraan mislada qabyaaladu waa dhamaanaysaa abadan anu malay maayo inta leeyahay 4.5 waa yani tuhum la qabo waa heshiis la'aan aan jirin dadkii aan soo cawlo furayn waxa ka dareemi kartaa 4.5 oo isma aamini karnee aynu wixii qabiil ku qaybsano waa u muuqataa ayada u muuqataa ila isma aamini karnee 4.5 noogu qaybiya qaran iyo qabiilna meel ma wada galo anu aqligaas meesha laga keenayna ma aqaan waataay see marka qabiilkii looga gudbi karaa Soomaalidu hadda aad bay ugu dhaqantaa aad haddartaan ma isladahay marka loo fiiriyo xataa dhinaca nidaamkan federaalka ee gobolgobolaysiga wuxuu dib u soo kicinayaa habkii qabyaaladda waxaad u jeedaa horta federaalka waxa la yiraahdo ama nidaamka dawladnimo Soomaalidu ma fahamsana anu waxaan qabaa marka hore horta in la baro dawladnimada waxa la yiraahdo sida dawladnimada waxa la yiraahdo waxaan qabaa in la baro oo la fahamsiiyo sababtuna waxay tahay waxa la yiri 4.5 baad ahaydeen waxaad u dalaacdeen gobolaysi waxa hadda bilaabatay reer degmada ilaa malaha reer ceelkaas ka cabaan iyo iga durug waa isjiidkii iyo qabiilkii shaar loo sii geliyay waa la korinayaa qabiilkii baa la cadeynayaa anu san qabo oo yani waxay u muuqataa in qabiiladii dib isku abaabulayaan boorka isaga jafayaan nin walba gobolkiisa uu xarxaaranayo oo Saudi arkaya ma anu waxaan ka soo gobolka galguduud reero badan baa isku haya reero badan hiilaan waxay leeyihiin annaga lama soo gali karo degmaan ku lahayn waxa beeshina waxba kuma laha sablaar hadan tago waxa leeyahay annaga halka annaga askale xaggaas kacaanka ku keenay dib u noqo meeshii dhaqankeeda ma aqaan dadkii ma aqaan waxaan taaganahay cid caasira dadka waxaan kula talin lahaa marka war qof walba qofkaad fahmaysid raac 4.5 naga daayay federaalkana sida loo yiri ma ahane waa in intii isfahmaysa anta israacdo ay wax isu darsato wada noolaato wada shaqaysto nolosha la soo ogolaado haddii marka sidaan arrinku ku sii socdo oo qabyaaladan ay ku dhaqankeeda iyo la sii xoojiyo maxaa natiijada laga dhaxli karaa oo ugu dambaysa noqonaysaa waa on jug meeshaada joog kulay ilaahay daayar wuxuu ku tagay war reerkiyow shacabka soo ilaahay godka uma qoon way ka soo bixi doontaa marka annaga gaalkaas kama liidan ilaahay godka naga soo saari doona ilaahay rajada ka qaadin ilaahay baan ka rajaynaa wax khayr qaba inuu ugu bedelo ma la dareemay durbasaan saanta maamul goboleedyada iyo waxa ka dhacay gobolada qaar iyo dagaalada ka dhacay xeydashada dhinaca qabyaaladda waa la dareemay maahan heer waxay mari hadartan ceelash in isku dilo oo aan xataa hayado noo joogay meesha badan nugaal hayado noo joogay oo ka shaqeeya daryeelka bulshada guud waxay sameeyeen inay talaala sameeyaan meel xarumo oo hooyada iyo dhallaanka lagu qoodiyo deetana waxaana soo yeelisa reer hebel maamulka hadaysan ku jirin yacni wax caruura oo loo gargaaray ama hooyo uur leh oo la caawin karaa ma jirto waa masiibo nooc min masiibo balanbil bay ka dhacday waxay ka dhacday gelijiray ka dhacday gadoon bay ka dhacday waxay ka dhacday xiindheere ka dhacday bulucle ka dhacday intaas oo dhanba dadka noo jooga hayadan u jooga waxay noo soo sheegeen inay tahay wax masiibo ah maadaama la yiri meesha degan haddaysan ku jirin hooyo u dhig baxaysa lama caawin karo aabe daacan ku dhacay ama tabarda nafaqo u baahan lama caawin karo ilmo yar fuuq baxaya lama caawin karo wuxuu ilmaha yar u badbaadi waayeen waa reer hebel haddaanay ku jirin kaalintaas lama buuxin kara la yiri marka Soomaaliya ilmihii darxumaha u dhinteen oo qofkii meesha u dhintana aqoontii baa ka maqan imkaaniyaadkii baa ka maqan xiriirkii iyo hawshii baa ka maqan aqoontii ma dhameystira haddii aad tahay qofkan hadin caawin wax li uma dhalan meesha uma dhalan bal aduu wax dheh qofka qaban la wax meesha uma dhalane aduu qofkii meelgey marka caawi waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey aamin media limited waa tahay marka in arrinkaa la dhameeyo ma ururada bulshada rayidkaa laga rabaa inay dadka ka wacyigeliso ma dawladdaa laga rabaa ma UN-kaa laga rabaa ma yaa laga rabaa waxaan inta dadka laga wacyigeliyo in khataraheeda looga digo horta markii hore annaga hay'adaha nagu sii jiray waxay nagu sii jireen qandaraas oo kale mid ama heshiisna la geli jiray barnaamijyada la eegay jiray waxaan dalbada dhibi jiray wala soo jawaabi jiray qaar waa la soo diidi jiray qaar bas way ahaayeen laakiin hadda wax muddo inaan dawlad rasmi inaan leenahay oo aan nahay dal xora oo dawladdiisa dhameystiran tahay dawladda ayaa laga rabaa inay bulshada inta abaabusho
ay kasbato wacyigelinta ay anaga noo dirto ama hawlaha nooga dirto xataa fi sabiilillah waa uu shaqeynaa hadday dawladuna kasbato ay tiraahdo war hawshaas hal iga aadanaado diyaar baan u nahay laakiin dawladdiiba ma hayno waxaad moodaa inaan xoogaan nala fogeynayo maxaa marka hadday sidaa tahay yani dawladdu hadda waxay qaadatay nidaamka federaalka weliba hadda yani dastuurka soo qoray madaxweynuhu dastuurka uu ka horreeyey maxaa isleedahay lagu bedelan karaa dawlad federaal maxaa lagu bedelaya may federaalku waa fiican yahay muxuu sida la sheegayo Soomaaliya sida u dhageysan maaha federaalku nidaam fiican waa yahay oo wadamo badan oo naga ilbaxsan oo naga xadaarad badan oo ku dhaqma ayaa jira oo kala diina oo kala afa oo isku afa oo kala dhaqana yani waxay ku xiran tahay hadba mujtamac ma wada noolaan karaa mujtamaci wada noolaan karaa waa federaal waa samaysan karaa kan wada noolaan karin oo kala dhaqaale badan oo kale wuu samaysan karaa laakiin waxay ku xiran tahay hadba siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed sida u shaqeeyaan ku xiran tahay waxa dadka isku keena isboortiga iyo waxa kamid ah fanka iyo maaragtay yani nidaamka gobolada dadka sida hadda dawladda kacaanku ee gobolada dadka isaga rari jirtay arrimahaas haddii hadda la bilaabo ma isleedahay dadku way isdhex geli karaan oo waa la iloobi karaa qabiilka haddii la helo bulsho ka bixi karta kartideedii iyo aqoonteedii anigu waxaan qabaa in waxaan laga bixi karo Soomaaliduna waa dad la xukumo dadka ugu jilicsan laakiin waxaa haysa hoggaan la'aan waxaan qabaa haddii dadkan ay helaan dad wacyigeliya oo ilbaxa oo aqoon leh oo cadaalada oo qabiilka kaas inkastoo qof Soomaali aan qabiilka laga weyn karo laakiin waxaa jira waxyaabo aysan diintu xataa ku ogolaan inaad qabiilhaan u dhaqanto marka ilaa xad waa laga baabi'in karaa laakiin uma jeedno dadkii ka baabi'in karaa ama ka shubi lahaa maxamed wuxuu yiri waa la ku shubay waa ka shubaynaa dadkii ku shubi lahaa lama hayo hadda waxaa leedahay dadka qabyaalada waa lagu shubay laakiin lagama shubin ama laga shubay la isku mabdayinba maba la isku dayinba yaa laga sugayaa inay ka shubaan siyaasiyiinta aqoon-yahanada macallimiinta dhaqaatiirta iyo ururada bulshada rayidka ah iyo saxaafadda cid walba iyo dawladda xataa inay ka shubaan waxaan waa tahay annagoo ka tilmaam qaadanayn halhayska dawlad xun dawlad la'aan bay dhaantaa ma isleedahay Soomaalida way la gudban tahay inay ku dhaqaaqaan si aysan dib dambe uga dhicin taariikhdii aan la mahadin ay soo mareen oo ay dawladnimo hal mar u dhaqaaqaan oo wadajir si wadajir niyada oo kala yalaaba inay dawladooda u soo ceshadaan oo markaa dawladnimo ugu dhaqaaqaan si aan wixii hore loogu laaban horta Soomaalidu waxay tahay ukunta iyo digaaga horta yaa horeeyay waxa imtixaan ah dadkan lagu shubay qabiilka horta waqti bay qaadanaysaa maantaan yani digaagadani maanta dhalaysaa isla hore ka soconay aniga umaleynay suuroweyso waxa la rabaa in juhdi la geliyo dadka sidii maskaxdooda lagu nadaamin lahaa annagana haddaan nahay Soomaali laba cudur baan qabnaaba aqoon la'aan xagga dawladda waa qabnaa qabiilkiyo aan fahamsanin oo si xun u fahnayna waa qabnaa labadaas arrimood wax nagu shuba waa rabnaa wax naga shubana waa rabnaa oo labada dhinaca qabiilkii wax naga shuba waa rabnaa oo nagu bedela nolol iyo mujtamac la dhex galo iyo dad aan is aqoon dad aan kala qabiila in la wada noolaado oo gol in la ku daro war rabo oo dad u bisil aqoon-yahana u tababaran inay bulshada wacyi geliyaan ka shubaan qabiilka kuna shubaan wada noolaanshaha waa laga marmaan dad dawladnimada yaqaana oo dadkii isticmaal soo shaqeeyay oo xorriyadda soo arkay oo soo halgamay haddii wax laga helayo waxaan u baahnaanahayn inay horta noo sheegaan wax la yiraahdo dawladnimo waxay tahay la fahamsiiyaba ma fahamsanin dawladnimada ma naqaanaba marka runta laga hadlayo marka sidaa la yiraahdo ma isleedahay kaadiriyiin oo dawlad yaqaan ah oo xarumo loo sameeyo oo bulshada wacyi geliya oo saxaafaddu kala qayb qaadato oo bulshada hanuuninteeda ummadda meel baa lagu hanuuniyaa yani u soo istaaga ayaa arrinkan looga badbaadi karaa horta kacaankiya wuxuu wax yahay toosinta dadweynaha iyo tusaalooyinka kacaanka dad kaadiriina oo anta la diyaariyo ama hudhal la dejiyo ama meel loogu tagaladeeyo aftahana ah qubaro ah dadka dawladda maal geliso ama iska wax ku shaqeeyeen dadka loo diro gobolada loo doliyaa soo wacyi geliyo gobolkaas waxa laga soo shubo qabiilka laga ilaaliyo sinaanta cadaaladda horumarka iyo isdhexgalka bulshada kaalinta ay nolosha bini'aadamku ku leedahay dadka soo fahamsiiya waa qayb ka mid ah dawladnimada intaas haddii aan helno waa rabbil caalamiin ma isleedahay marka dadkii waxaas yaqaanay dalka waa joogaan oo maaragtay wax u dirsaday laayin qaar badan baa buuxa oo waliba baahila tiyaay qaar waxa la sheegay mooska gada oo cambaha gada la sheegayo oo qowraha xataa la soo shaqeeyay Soviet la soo shaqeeyay oo Talyaani la soo shaqeeyay oo Ingiriis la soo shaqeeyaa jooga oo laakiin mal haddii Soomaali waxay tahay dad qof maal haysan naf male aqoontiisu naf male haddii Soomaali haysan naf male tixgelin male bulshada kuma lahanba dhaqankaas ay caadaan ka dhiganayba waa taa laakiin waxaa laga yaabaa madaxda dalka joogta inaanay dadkii hore aqoonin madaxdii hore aqoon qofku inuu asagu inta yimaado oo yiraahdo war anigu shaqadaydu waa tan hanuuninta aqaana la idiro
oo bulshada ka soo dhex baxo oo Soomaalinimo uga soo dhex baxo oo inuu dawladda jecel yahay uga soo dhex baxo oo uusan xaafadaha ku ekaan Soomaha baro halkan waxaa jooga nin yahay Yusuf Goobe oo Yusuf Kombo wuxuu aan jiray madaxa Shabeellaha Hoose ee wacyigelinta iyo tusaalooyinka iyo tusmada kacaanka Soomaaliyeed xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed soo diray 78 waxa lay dadka qaxootiyaasha hanuunta iyo dadweynaha bachar buu bixin jiray casharo siminaaro qaban jiray dad baa loo taabari jiray dadkaas habeenka ultooshika tagi jiray waxaad muddo in quraan lagu shubay sidaas u dhig raacinaysa u baahan tahayba ilmo yar daad xataa ka seexamayso hay'adaha gabayada suugaanta qaybadeeda kala duwan waa markii ugu horeysay oo arko inuu lix jiro khudbad dhageysanay oo wax la yaab leh inuu lix jiro oo khudbad dhageysanay waa wax la yaab leh xataa ma fasiri karo laakiin u bagaya maxayna ka timid dadka kaadiriinta ee wax baray dadka oo ku shubay ayaa waxaan dad bisil marka waa qayb kamid waa meesha bulshadu laadahay meeshaasaan balaanahayba hadda carruurtu ma dhageystaan khudbadaha iyo madaxda hadaladooda iyo soddon jirkan dhageysan soddon jirka iyada ku leeyahay ama qaad doonta ama islaantan ama cancaan doonaya ku leeyahay maba xisaabtamaanba dadba ma jiro in lagu shubay rabaan macna taa ma rabaanba yacna ma ogaba inay tahay kor aqoon iyo ogaal inay tahay waxan ma oga waa qayb kamid aqoon iyo ogaal ulteeshinada khudbooyinka laga dhageysto waxbaa la fahmaa waa la dhageystaa bari baad ku toosaysaa waa ku dayanaysaa ka kaaron dariskaaga raacaysaa yacni waxa laga bartaa faa'iido iyo macaasha laga helaa khudbadaha laga helaa qaarna lagu qasaaraha kuwa wax duuniya lagu qasaaraa kuwa wax dhisnaa lagu faa'iidaa intiiba marka ma hayno maadaama adigu hadda aad wax badan ka xasuusato arrimaha hanuuninta haddii hadda waqtigan aad ku salayso oo lagu oran lahaa adiga bal bulshadan hanuuni erayada maanta ay u baahan yihiin qof walba Soomaaliya maanta marka wax weydiiso maxaa u baahan tahay nabada u baahan u leeyahay adigu maxaa isleedahay Soomaalida maanta u baahan tahay horta waxa jira Soomaalidu waxay tahay cawad baahan cawdadadu qabiilkii wala dhibkiisii amaan daradii waa dhibkiisii wala arkay haddana waxa arkaysaa nin ganacsada oo maal qabeena oo haddana la shaqeynaya qolada tuugada wasaqda dadka qarxilaysi bal ninkaas xaga u socda waxa uu roosa yaqaan kii faqriga koobka shaana haysan wuxuu leeyahay warnay naga dagaalka naga daa kii guriga dabaqa laha oo ka dib wuxuu leeyahay war dabka hala wado war ma nooc min imtixaan waay anigu waa laakiin waxaan rabaa in loo daayo shaqada wala kala leeyahay kaadiriin gudiya loo saaro saxaafadana loo shaqeeyo sida lagu wada shaqeeyo dadka wax lagu wacyi geliyo gobolada loo diro degmooyinka loo diro macnaha waa barnaamij saxaafadu ay wakiil nooga tahay barnaamij weyn oo wali mashruuc waay waa nooc min mashruuc dawladdu waa in dhaqaal ku bixisaa faan ku dhiibtaa dawlad nidaam aan lagu bixin ma lagu bixin lama helo waa in qarash la geliyaa oo waqti la geliyaa oo juhdi la geliyaa laakiin dad leedahay bari waa in dawlad hadda shaqada socotaa absolutely anu ma aqaan si ku suurayso waagaag annagoo gabagabadii soo gaaranay muhiimadda midnimada u leedahay bulsho meel ku wada nool oo si wada jira ugu hoggaansan taageerada dawladooda qaran maxay tahay waa laba qodob ayaan warkaa dadku horta waxay u yihiin inay nabad u baahan yihiin dawlad la'aan lama noolan karo dawladdu nidaamkay keentaa dadweynuhu waa raacaa waxaan ka rabnaa marka dawladdu in nidaamkay keento shacabku raaci lahay shacabkana waxaa rabaa inay iskaashi ka sameeyaan oo daraasad inta sameeyaan qoys 2 guri 10 guri 40 guri ilaa 100 guri daraasad noocaas la sameeyo la isku xiro guriyaha la isku xiro waxaan rabaa inaan halka dhig ugu dhigo nabaddu waa nolosha furiheeda amaankuna haddaanay dhaqaale jirin amaan iman maayo amaankii wuxuu ku iman karaa inuu dhaqaale yimaado waa isku xiran noloshii amaankii nabadii iyo dhaqaalihii wuxuu isku xiran yihiin marka waa in la helaa qaab loo daraasanta loogu sameeyo gudi loo saaro saxaabadu ka mid tahay aqoon ka mid yihiin la yiraahdo nabadda sidaan lagu heli karaa oo waxa ka mid ah in dadkii ay wada shaqeeyaan saxaafadii lala shaqeeyo amaankii isku halaamii security lala shaqeeyo hay'adihii dhaqaalaha lala shaqeeyo in kaniyaadkii bulshada saa lagu dhiso midnimada barka muhiimadda ay leedahay waa laga marmaan tafarruq waa nooc min al-cadaab waxa la yiraahdo tafarruq waa nooc min al-cadaab qof tafarruq dad ku aragto waa qof dubnooshiis waa baaba midnimaduna waxa bay dhistaa wala tartama waxa la isaga daydaa wala kala hormaraa yani dadaal waxa heestaynaysa oo oranaysa hadii aad nolosha ku nolosha soo gooso aad ku daraysato ha ka caajisin hana keenay jib isku day inaad hadana adoo niyad leh soo goosto noloshaada shalay oo kale halkaas waxa ka cad niyad jabku inuu yahay waxa bulshada niyad jabiyo qof walba uu leeyahay waxaas maxaa iga galay waxaas naga daamaa calash weeyaan war waxani waa wixii aad ku noolayda ilaasho ma kama kartid marka waa laga marmaan dadku inay helaan nabad inay helaan waa laga marmaan laami in la shaqeeyo amniga waa laga marmaan cadaalad inay helaan waa laga marmaan madaxda cadaalad baa laga rabaa cadaaladina waxa laga rabaa inay dad dhisto saxaafadu ay kamid tahay gudi loo saaro dhaqaale la geliyo
wixii waa in midnimo la raadiyaa midnimadu waa nolosha ku dhisan tafaariq waxba ma taro midnimo waa muhiim jiddan bulshada ku dhageysanaysa maxaa oran leedahay waxaan oran lahaa walaalayaal midnimadu waa laga marmaan adduunkii baa isu socda Yurub baa israacday Afrika israacday idinkoo qoys oo Soomaaliya hal qoysa inaad tiraahdiin wax u kala goynaa maqrib iyo maqshib waa waxaan caqliga fayow aanu qaada karin maskax foorartana warkeed ma rabno waxaan ku talin lahayn in midnimada la ilaaliyo Soomaalinimaduna ay hal tahay hal qabiilna wadanahay midnimada dhaqaalaha ku jira ma marin kartaan dadka dhaqaalaha waxay leeyihiin midnimo timaado dhaqaalaha iimaanaya dhaqaalahaasi xajmigi tafaaruqa waa ka badnaanaya marka midnimadu waa laga marmaan waa muhiim waatahay aad iyo aad ba mahadsantahay xayir axmed kuukay iyo ahaa kaasi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo dadka weliba u dhaqdhaqaaqa human rightska dib intaan u kulmi doonno barnaamijkan kiisa kale waxaan idin leeyahay nabadgelyo وأسطن وتنينيمو وإسكاشيكو وانيمو وأديك شو سكان آمين ميريا ها ها آمين ميريا آمين ميريا ها ها آمين ميريا وورفهنا منا آمين ميريا وأسطن وتنينيمو وإسكاشيكو وانيمو وأديك شو سكان آمين